وأنا سلام لما صاحبada ku xiran janaalkeena aad ayaan kaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaalada bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal markaan waxaan isla eegi doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay inta ugu badan muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa labada filim ee kala ah eeg diiwaanka diiwaaniyad iyo sidoo kale filimka Tama labadan filim maanta ayaa tiyaatarada Hindiya la saaray qaybaha dambe hal iyo laba ayaan eegi doonaa warbixinada kale laakiin waxaan ku eegi doonaa inta ugu badan labada filim ee kala ah eeg diiwaaniyad iyo sidoo kale filimka Tama haddaan ku hormarno filimka eeg diiwaaniyad waa filim jacayl ah sheekadiisu waa jacayl waxa hogaamiyalkooda ah ninka lagu magacaabo Harshafadan Rani iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Sonam Bawecha marka la eego filimkan sheekadiisa aad loogu deeriyo oo habboona sheekadiisu waa sheeko duug sida shaac laga qaaday sidoo kale filimkan kaliya waxa uu ku fiican yahay la yiri muusikada iyo sidoo kale heesaha oo kaliya inta kale uu ka dhintay marka la eego filimkan lacag lagu qarash gareeyay waa in ka badan 40 karoor maalintii ugu horeeyay filimkan waxa uu soo xaray waqtigan la joogo waxa uu diiwaan gashan oo kaliya wax ka 10 karoor saaxiibayaal marka la eego filimkan shaadada heestana adult oo kaliya dadka qaangaarada oo kaliya ayaa fiirsan karo filimkani shaashadaha uu helay ama tiyaatarada uu helana waa in ka badan 1800 aan leeyahay 1800 oo tiyaatar gudaha Hindiya 1300 oo kale halka suuqyada caalamka uu ka helay 500 oo tiyaatar marka la eego filimkan 8 karoor oo kaliya ayaa waqtigan la joogo qiyaas ahaan uu keenay saaxiibayaal marka film 40 karoor lagu kharash gareeyay maalintiis ugu horeeyay oo hadana isbuuc Diwaaliga lagu jiray ku furmay 8 karoor taas meesha waxa ka cad filimkan inuu yahay film aad u liito ganacsi ahaan uu noqon karo film burbur ama film guul dareystay marka la eego filimkani waxa hogaamiye ka ah jalaaga lagu magacaabo Harafshandi jalaaga waa jalaagii filimkii Sonam Teri Kasam hogaamiyaha ka ah filimkaas inkastoo markii hore uu guul dareystay hadana dib ayaa tiyaatarada loo saaray waa uu guuleystay laakiin filimkan hadda uma eka film guuleysan doono dhanka kale haddii aan eegno asna waxa tiyaatarada la saaray filimka lagu magacaabo Tama kaasoo hogaamiyay ay ka wada yihiin jalaaga caanka ah Ayushmann Khurrana sidoo kale gabadha lagu magacaabo Rashmika Mandanna sidoo kale filimkan waxa ku weeliyay jilayaal waaweyn oo kamid yahay Paresh Rawal ama Osabuk waxa uu taqaanay sidoo kale Nawazuddin Siddiqi filimkan shaadadu haysto waxa fiirsan kara qof walba dad qaangaar dad aan qaangaar in labadaba way fiirsan karaan marka la eego filimkan tiyaatarada la saaray waxa ama tiyaatarada uu helo waa in ka badan 4600 oo tiyaatar taasoo yaani labada filim inay kala awood badan yihiin ka dareemi karto filimkan waxa lagu qarash gareeyay in ka badan 80 karoor qiyaas ahaan waa in ka badan 80 karoor maalintiis ugu horeeyay waqtigan la joogo maantadan saaka hore ayaa tiyaatarada la saaray laakiin hadda qiyaas ahaan lacag uu soo xareeyay waa in ka badan 28 karoor 20 karoor ayuu dheeriyaa filimka kale eeg diiwaaniyad saacadaha soo socdana in ka badan ayuu soo xareey karaa maalintiisa koowaad laakiin waqtigan hadda la joogo waa in ka badan lacag uu soo xareeyay 28 karoor saaxiibayaal وانا arki doonaa labadan film maalmaha soo socdo iyo sidee noqdaan waxa socodid badan filmkan Tama inay ka soo muuqan doonaan muuqaal marti ay ku leeyihiin Varun Dhawan iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Anita Betty ugu dambeyn sheekooyinka aan kusoo gabagabeyn doono muuqaalkan waxa weeyaan waxa shaac laga qaday gabadha lagu magacaabo Anita Betty oo sidoo kale filmkii Sayara qayb ka ahayd ama lagu soo caabiyay waxa lagu bedelay booska gabadha lagu magacaabo Karyana Advani ee filmka lagu magacaabo Shakti Shalani filmkan shirkadda Maddox Films ayaa iska leeyahay markii hore waxa la qorsheeyay in Karyana Advani ama sidoo kale Alia Bal loo dhigo laakiin hadda waxa shaac laga qaaday in gabadhan Anita Betty ee filmkani natiijad ahaan hogaamiye ka noqon doonto saaxiibayaal sheekooyin kale waxa qayb ka ah saaxiibayaal Salman Khan ayaa muuqaal marti ku yeelan kara filmka lagu magacaabo Gabru ninka lagu magacaabo Sanidol hogaamiye ka filmka 23 March sanada 2020 ayaa la rajeynaa in tiyaatarada loo saar laakiin xan hoose waxay sheegay in uu Salman Khan muuqaal marti ku yeelan kara saaxiibayaal ugu dambeyn maalinta berita waxa hees laga soo bandhigi doona filmka DDBR qaybtiisa labaad Ajay Devgan ayaa filmkaas hogaamiye ka ah sida shaac laga qaadana beri mid kamid ah heesaha filmkaas ayaa يعني الضامن دونا فيلم كاس على رجينا انت اعترض دي لسارة في 8 نوفمبر سنة 2025 ادب انتاس ايام كسو غبغويه مقالكي فضلا جنال كدات عصب تان وسو بير مقال كدات كيش لاغي نو صار سي شير غري او لو داغ اصحابتاد ان كو ما سنتا داوشدا مقالكينا